maxay tahay halista cusub ee geeska Afrika? Hunguriga Abiy Ahmed ee dhinaca badda waxa uu haadaan ku riday mustaqbalka 120 milyan oo Itoobiyaan ah. Awoodda militariga Itoobiya iyo Eritrea kuma ku guuleysan kara dagaalka halistiisa leh ee geeska Afrika. Generaalkii hogaaminaya dagaalkii Badmewar waxa uu ku goodiyay in dagaalkani uu rogi doono qariirada geeska Afrika. Haddaba yaa adkaaday dagaalkii 2 sano ee Badmewar kaasoo dhacay sanadadii 1998 ilaa 2000 ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Eritrea. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa dagaalkaasi oo ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu dhimashada badnaa geeska Afrika, hub urursiga iyo colaadda mar kale ka qarxaysay Itoobiya iyo Eritrea. Haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir bogeenan Xuseen Xaaji Xasan, muuqaalkana sii faafi. Taariikhdu markii ay ahayd 6 May 1998 magaalada Badme ee ku taalla xuduudka Itoobiya iyo Eritrea u dhaxeeya waxa soo dhaafay ciidamo Eritrean ah oo u abaabulan dagaal qoto dheer. Badme oo ku taalla gobolka lagu magacaabo Gashka Barka region waxa markaasi sheeganaya Eritrea. Itoobiyana markii ay maqashay in gudaha ay u soo galeen ciidamo Eritrean ah waxay ku dhaqaaqday duulaan ka dhan ah Eritrea. Toddobaad kadib oo ku beegneed 13 bishii May ee isla sanadkaasi, ciidamada Itoobiya oo lagula soo balamay weerar buuxa oo ay ku qaadaan Eritrea ayaa soo buuxdhaafiyay magaalada, waxaana halkaasi ka qarxay dagaalkii weynaa ee lagu hoobtay kaasoo socday ilaa sanadkii 2000. Eritrea waxay markaasi xor ahayd 5 sano oo kaliya oo dawlad jirta oo dunidu ay aqoonsan tahay u taagneed. Sanadkii 1993 ayayna ka go'day Itoobiya. Tan iyo markii ay Itoobiya ka go'day ilaa iyo haatan, Eritrea waxa madaxweyne ka ahaa Isaias Afwerki, halka dhanka Itoobiya uu dagaalkaasi ku hogaaminayay ra'iisul wasaarihii Tigreega ka dhashay ee Meles Zenawi. Dagaal taariikhda galay oo ka qoto dheer kii xornimada ay ku soo xoogsatay Eritrea ee 1993 ayaa geeska Afrika ku dhuftay. Tirooyinka dhabta ah ee ciidamada labada dhinac ka dagaalamaya lama oga, laakiin waxa uu ahaa dagaal leh dhul iyo cir. Waxa uu ku baahay caasimadaha Addis Ababa iyo Asmara iyo guud ahaan gobolka ilaa Soomaaliya xataa uu saameeyay sida warbixinada ku xusan. Dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee la xasuusto waxaa ka mid ah weerarkii 5 Juun ee 1998 kaasoo ahaa weerar ciidamada cirka ee Eritrea ay ku dhifteen dugsigii magaalada Mekelle ee gobolka Tigreega, halkaasi oo ay ku dileen 100 arday iyo macallimiin isugu jira oo ku heeb ahaa ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Itoobiya Meles Zenawi. Wajigii hore ee dagaalka, Eritrea ayaa la wareegtay dhammaan magaalooyinka Badme iyo dhulka ku hareereysnaa ee xuduudka ahaa, taasi oo Itoobiya dhirbaaxa ku noqotay. 22 Febraayo sanadkii 1999 hal sano markii uu socday dagaalka, Itoobiya waxay qaaday weerar military oo baaxad leh si ay dib ugu soo qabsato magaalooyinkii laga qabsaday, balse afka ayaa ciida loo daray mar kale. Ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa ku barakacay, waxaana dhanka Itoobiya laga dilay in ku dhow 100,000 oo ciidamada Itoobiya ah oo ay u sii dheer tahay dadka rayidka ah ee kaga dhintay. Waxa intaasi sii dheer dhulka ku yaalay xuduudka labada dal ee muranka dhaliyay in loo xugmiyay Eritrea. Maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague ayaana amartay in Itoobiya aysan ku dhawaan karin xataa ilaa sanadkii 2018 markaasoo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu aqbalay oo uu saxiixay in dhulka xuduudka ah ee Badme ay ku jirto in ay leedahay Eritrea, taasi oo xaqiijisay guuldaradii Itoobiya. Saacadihii u dambeeyay ee Dorad waxaa soo shaacbaxay wacaal sheegaya in mar kale ay dagaalami karaan Itoobiya iyo Eritrea. Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki oo xulafo ahaa sanadihii tagay ayaa isku maandhaafay hunguriga Abiy Ahmed ee badda iyo heshiiskii Pretoria ee lagu soo gabagabeeyay dagaalkii Tigray. Gobolka Tigray ayaa u muuqda inuu noqdo meesha qarxisa dagaalka Itoobiya iyo Eritrea. Dagaalka ayaa la filayaa in uu noqon doono mid qaabeeya qariirada gobolka. Itoobiya waxay ku wanaagsan tahay dhinaca cirka iyo diyaaradaha droniska ah
laakiin Eritrea waxay haysataa hub casri ah iyo rag dagaalyahano ah iyadoo sidoo kale ay ka sii faa'iideysan karto qalalaasaha ka jira gudaha Itoobiya. bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag muuqaalkan ilaag saar oo sii sheer gare haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir bogeenan Xuseen Xaaji Xasan maasanid. taliyaha militariga dalka Itoobiya Birhanu Jula dagaal ayuu ku dhawaaqay wuxuuna ciidanka militariga dalka Itoobiya u diray fariin xasaasiya kadib shir jiraado ku qabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. waxaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa diyaar garowga militariga Itoobiya iyo duulaanka Asmara iyo sidoo kale fariimaha ka soo kala baxaya Asmara iyo Addis Ababa. ninka lagu magacaabo General Birhanu Jula waa taliyaha ciidanka militariga dalka Itoobiya. wuxuu warbaahinta kula hadlay shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya isagoo fariin u diray wadamo uu ku sheegay inay yihiin kuwa ay korisay Itoobiya balse imika aaminsan inay ku caasiyeen waa sida ku sheegay warkiisa. Master Jula ayaa waxa uu fariintan weerar ku qaaday dawladda Eritrea waxaana uu ciidanka Itoobiya ku sheegay inay isku diyaariyeen duulaan ay markaasi kaga jawaabayaan duulaan kaga yimid diriska iyo dalal shisheeye. generaalku carabka kuma uusan cadeyn dalka Eritrea laakiin waxa uu sheegay in duulaan lagu soo qaaday dalal ay Itoobiya soo korisay oo hadda ku caasiyeen ay yihiin kuwa duulaanka soo qaaday. ciidanka militariga ayuu ku sheegay inay heegan galeen 3 bilood ee la soo dhaafana qorshahaasi uu socday isku duubiridka ciidanka 90 maalmood ayaan ku diyaarinay ciidankeena militariga waxayna u diyaarsan yihiin inay ka jawaabaan dagaalka kooxahan ee aan soo korinay ee nagu caasiyay ayaa warkiisa ku jirtay taliyaha ciidanka militariga ee Itoobiya Master Birhanu Jula oo sheegay in cadawgu ay markaasi duulaan ku soo qaadeen wadankan balse ay ka jawaabi doonaan sida uu ku sheegay warkiisa ee uu ku baahiyay warbaahinta Itoobiya inay baahiyeen. dhinaca kale marka la eego warka hogaamiyaha militariga ee dalka Itoobiya ayaa u muuqanaya mid xasaasiya marka dhinaca kale la qiimeeyo waxaana sidoo kale warkaasi loo fasiray iclaaminta dagaal ka dhana dawladda Eritrea. suurtagal ma tahay in xukuumadda Abiy ay duulaan qaado sidaysa suurtagal ku noqonaysa inagoo og in Tigreega oo xuduudda Eritrea xiga ciidanka Eritrea wali ay gudaha ugu jiraan ay joogaan TPLF la shaqeeyaan amxaaradu dagaal holcay ka jiraan. hogaamiyaha Itoobiya oo maalin ka hor hadlay isagu wuxuu sheegay in dawladda Itoobiya ay dagaal diyaar u tahay laakiin nabad ay ka jecel yihiin sida daraadeed aysan aqbali karin in duulaan lagu soo qaado oo wadamo sheeganaya inay abaal u galeen Itoobiya ay ku xadgudbayaan waa sida uu ku sheegay fariintiisa hogaamiye Abiy Ahmed Cali. qodobkaasi aad u muhiim ah wixii ku soo korra waneegi doona.